nabadda waa aasaaska nolosha siyaasad xasiloonna waxay muhiim u tahay in Soomaalida ay nabad ku wada noolaato sanadihii dambe waxaa Soomaalida gaar ahaan madaxdeeda lagu dooranayay hanaan dadban oo beelo ku salaysan waxaana muhiim ahayd in siyaasiyiinta talada markaas haysa heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay ka arrinsadaan ku heshiiyaan hanaanka ay doorashada u dhacayso dalka waqtigan wuxuu marayaa xaalad aad u jahwareersan una baahan in la adkeeyo nabadda sidoo kalena laga shaqeeyo sidii loo heli lahaa siyaasad iyo heshiis doorasho oo horseeda in dadka Soomaaliyeed ay nabad ku noolaadaan hogaamiyayaashoodana ku doortaan si nabad ah waxaan ku baaqayaa in madaxda talada hayso ee ka arriminaysa masiirka iyo mustaqbalka Soomaalida gaar ahaan sidii loo soo dooran lahaa xildhibaano iyagana doorta madaxweyne inay ku heshiiyaan ka wada hadlaan iskuna waafaqaan sidii dalka u gali lahaa doorasho heshiis lagu yahay fulinteedana ay ka dhalato in la soo saaro xildhibaano dalka ku hogaamin kara horumar iyo nabad waarta